salaan kadib dhalinyarada qurbaha jooga waxaan kula talinayaa inay iska daayaan shaqooyinka ay ku jiraan oo ah taxi, bas, tareele, maxaa la dhahaa van, maxaa la dhahaa car rental, parking, shaqooyinka baabuurta laga shaqeynayo oo dhan in aysan abidkood in aysan haweysan oo aysan xitaa iska daa inay ka shaqeeyaan oo shaqo ahaan ugu talagalaane xitaa tijaabadiisa in aysan xataa tijaabin oo isku dayin hal maalin xataa in aysan isku dayin. wuxuu leeyahay caafimaad darro, wuxuu leeyahay nadaafad darro, wuxuu leeyahay waqti lumis, wuxuu leeyahay gaajo, wax cillad ah oo ka maqan ma leh. lacag kasta oo qofka uu haysto hal daqiiqad ma quuro oo uu cunto ku cuno ama uu ku qubaysto ama uu ku cadaydo ama uu dhar ku nadaafsado. hal daqiiqad ma quuro qof, hal daqiiqad ma quuro. waxaa loogu yimaadaa wasakh, gaajo, caafimaad darro. qofku asagoo caafimaad qaba oo dhalinyaro ah haddii uu koro taxi iyo tareele iyo basas wax ku shaqa leh baabuur wadis oo dhan, baabuur la wado oo kaste, qofku hadduu dhex galo 5 sano gudahood iyo wuxuu ku baaba'ayaa caafimaad ahaan iyo qof ahaan buu ku baaba'ayaa. caafimaad darradaas waxyaalo badan baa usoo jiidahaya. waxaa usoo jiidahaya nafaqa yari, cunto yari, maxaa la dhahaa socod yari, exercise ma leh, iyo waddada gaarigu markuu marahayo hadda murqaha oo kale markii aad waddo maraysid haddii murqahagu diyaar u yihiin oo soo jeedaan jugta way xamili karaan. waddada gaariga markuu taayirka meel goda ku dhufto jirkaagu haddii uu adag yahay oo uu ishaysto oo uu og yahay waxa soo socda wuu u diyaar garoobi karaa. laakiin haddii jirkaagu uu dabacsan yahay oo uu nasanahayo, murqahagu hadday dabacsan yihiin oo nasanahayaan, jugtaas way ku dhaawacaysaa. jugtaas murqahaagay dhaawacaysaa iyo lafahaaga, maxaa yeelay xubnihii baa dabacsan oo nasanahaya. waqti ay ku talagaleen ama ay ka hortegi lahaayeen ma aha. waqtiga ma oga in ay soo socoto jugtani. caafimaad darro buu ka qaadahayaa qofku. haddii cuntadu kaa yaraato, exercisekaagu yaraado, socodkaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga iyo orodkaaga hadday yaraadaan, waxaa kugu dhacaya cudurro nooc kaste oo aysan iska difaaci karin jirkaagu. uu ka mid yahay sonkor iyo dhiikar iyo xanuunadaas oo dhan. waddo haddaa saaran tahay meel aad wax ka cunti ma laha,
wax ma karsan kartid maqaaxina kuma dhowa dantu waxay kugu khasbaysaa in aad gaajootid inaad gaajootid oo aadan cunto helin oo aadan nafaqo jirkaagu u baahan yahay in aadan helin tagsigana musqushii adoo ag maraya musqushii ayadoo kugu ag taallo baad waxaad ka wahsanaysaa inaad geshid sababtoo ah waxaa ku xisaabtamaysaa lacago iyo gaariga kiradiisii iyo lacag waxaad samayn lahayd baad ku xisaabtamaysaa oo waxaad ka bakhiilaysaa in aad wax cuntid waqtiga ku baxaya inaad wax cuntid ama in aad musqul ku leexatid baad ka wahsanaysaa ama ka bakhiilaysaa waad rabtaa intaad aad wax cuni lahayd inaad lacag hor leh $30 $20 hor leh inaad ku heshid intii aad wax cuni lahayd ama musqul aad geli lahayd in $10 ay kuu saa'ido dharkaaga ma nadaafsan kartid maxaa yeelay waqti uma helaysid afkaaga ma nadaafsan kartid maxaa yeelay waqti uma helaysid waxaad qabaysaa dhar wasakh ah jir ahaan waad dhammaanaysaa baruurtu way kaa dhammaanaysaa hilibka wuu kaa dhammaanayaa xubnahaagii iyo lafihii meelaha iska gelahayeen waa dabcahayaan waa xanuunsanahayaan marka qaran dhan oo isku wada dhib ah oo isku wada nooc ah oo isku meel laga haysto ma fiicna oo kulligood isku wada cillada oo maxaa la dhahaa kulligood gaariga markuu cusub yahay oo taxi laga dhigo ama taraag ama bas waxaarta ka dhig gaarigii oo sanadkiisa cusub yahay ilaan waddadu saaran yahaye baa gaarigii dhaqso dhammaanahayaa baabuurta kale oo aan taxiga ahayn baabuurta kale oo isku da'da ahaayeen oo aan taxiga ahayn muddo badan bay sii soconayaan waqti badan 20 sano bay sii soconayaan asagu waxaa looga saarahayaa 5 sano ama 4 sano baa looga saarahayaa suuqa oo ku dhammaanahayaa oo ku kala daadanahayaa sidaas taxigaas su u dhammaaday iyo waddadaas dhammaysay jugta dhammaysay waa qofka baadhigiisa iyo jirkiisana dhammaynahaya wixii birtaas kala daadiyey baabuurka birta ka samaysan waxa kala daadiyey oo qofka jirkiisii ku dhacahaya asagana asagoo da'yar baa sidaa taxigaasi u suuqa uga baxay buu asagana suuqa uga baxayaa oo ka hor dhammaanahayaa dadkii ay isku da'da ahaayeen iyo isku nooc ah buu ka hor dhammaanahayaa waxaa soo yaraanahaya cumrigiisa cumri degdeg baa ku dhacaya qofka wuu cumri degdegahayaa waxaa uga digahayaa qofkii qof ehela leh oo ku fakarahaya inuu taxi karo ama wax ku saabsan gaari la wadahayo oo shaqo laga dhigto wax ku saabsan qof kaste oo ehel leh inuu ehelkiisa ka hor istaago oo dhahaa samayna waxaan ilaah baa isaaqad bixiye wax kala samee xataa haddaad iskool u aadayn oo waqti badan aadan bixinayn waxyaalo kalaa jira waad samayn kartid adduunka ilaah waa furan yahay waa ballaaran yahay in dadku ku wada cararaan taxi iyo tareele iyo bas la wado iyo shara laga shaqeeyo iyo rentikaar laga shaqeeyo iyo wax baabuur keliya ku saabsan la wadahayo qaran dhan oo ku wada fakarahaya oo u wada socda waa musiibo weeye waa musiibo qaran weeye wax kasta oo aad ka shaqaysidna
ilaahay barakadu ka qaadayo baraka ma leh wax aad taxi ka shaqaysay ama taraa ka shaqaysay ama bas ka shaqaysay ama sharal ka shaqaysay ilaah baa barakadii ka qaadayo baraka ma leh wax baraka ma leh marka adigiyo dhintay oo xataa reerkaaga aan u heli karin waqti naftaada aan u heli karin waqti aad wax ku cuntid iyo aad isku nadaafisid ba ilaahay baa taa waxaa sii dheeraatay in ilaahay barakadii ka qaaday uusan baraka lahayn waxaad soo heshid oo meelay ka baxday iyo meelay aaday aadan garanaynin qofkii ku tala jira ama loogu sheekeeyey ganacsiga noocaasa baa wax laga helaa oo faa'iido leh waan ka digahayaa shakhsi ahaan baa kaaga digahayaa qaran ahaanna waa idinka digahayaa waxyaalo waxaa jira muddo yar aad ku baran kartid haddaad qurbaha joogtid waxaa ka mid ah sida korontooyinka loo hagaajiyo sida loo hagaajiyo maxaa la dhahaa guryaha sida loo hagaajiyo muddo yar baa ku baran kartaa waana lacag ciidi ka badatay waxaad ku shaqaynaysaa abid intuusan qof tagsiila ama taraagla ah ama maxaa la dhahaa wax gaari ku shaqale wax laga shaqeeyey abid in ka badan baa ka shaqaysan kartaa waana xirfad haddaad meel kale la aadid way ku anfacaysaa waana xirfadaha loo baahan yahay oo nolosha dadka u kaalmayn kara gaari la wado waxaas dadka bini'aadanka waxba uma faa'iidayso meel kastaa tegaysaa ayaan dhexe waa laabtay maraykanka ka tegey waan tegey waxaan tegey soomaaliya tan waxaa kaaga soo wada oo tusaale u tahay qof kaste wuxuu bartay ama yaqaano yuu la meel marayaa oo wax fiican ka dhigaya oo la tegayaa meesha meel looga baahan yahay wax qof kasta wuxuu bartay buu yaqaanaa wax kale ma yaqaano kama hadli karo kama sheekayn karo haddii aad baratay wax kastoo aad baratay ama faa'iida ha lahaadeen ama aysan lahaanin ama nacfi ha lahaadeen ama khasaare ha lahaadeen wax kasta oo aad baratay baad la meel tegaysaa marka soomaaliyadii aan tegey waxaan ku soo arkay tagsiilayaal ama taraaglayaal waddankii intay tageen iska cabbiray dhul ilaahay oo waddooyin u magacaabay oo waddooyin jeexay oo jiheeyey oo wuxuu soo bartay waddooyinkii say u toosnaayeen buu soo bartay iyo say isu goynahayeen buu soo bartay wuxuu ka tegey qurbaha soomaaliyuu tegey wuxuu yaqaanay waddo qaabkay u toosan tahay iyo qaabkay u leexato iyo say isu goyso buu yaqaanay oo barta tagsiiluu ahaa ama taraaglu ahaa ama sharal buu wadahayey ama bas buu wadahayey waddadii qaabkay u toosnayd ama qaabka isu goynaysay buu bartay soomaaliyuu la tegey wuxuu cabbirtay waddooyin say isu googooyaan buu cabbiray waddooyin say isu googooyaan iyo say isu jaraan iyo say u leexleexdaan buu cabbiray war ilaahay baa idinku dhaariyee maxay tahay qof soomaaliya jooga faa'iidada lagu soo kordhiyey oo qof dibadda ka yimid uu ku soo kordhiyey oo ah waddo la toosiyo iyo waddo la qalloociyo iyo meel la cabbiro ilaah baa idinku dhaariye baahidii adduunka ilaahay oo dhan baa badatay bal qofkaasi muxuu u kordhiyey wuxuu bartuu la yimid beentiis ma aha waa wuxuu la bartay laakiin wuxuu bartay faa'iido ma lahayd oo dad ma u geeyey yay badbaadinaysaa hadda dad soomaaliya jooga oo loo sameeyey waddo la toosiyey ama waddo la qalloociyey ama waddo isgoysay ama waddo magac loo bixiyey ama nambar la siiyey ilaah baa idinku dhaariyee yay anfacaysaa ma qof soomaaliya jooga
bay baahi ka fujinaysaa ama wax taraysaa ama noloshiisa wax ka bedelaysaa ama wax ka badbaadinaysaa oo khatar ku soo socotay ka badbaadinaysaa. qofkaas wadooyinka dheer bartay iyo wadooyinkaas la toosinayo ama la qalloocinayo ama la isgoynayo ama la magacaabayo ama nambarka la siinayo qofka bartay wax fiican hadduu baran lahaa oo waxyaalaha beeraha ku saabsan ah, waxyaalaha nafta sida loo badbaadiyo, maxaa la dhahaa sida dhaawaca maxaa la dhahaa loo daweeyo, maxaa la dhahaa dadka jiran sida loo baanto, waxyaalaha u baahan yihiin beeraha sida loo fasho, sida ceelasha loo qoto, sida korontada guryaha loo geliyo hadduu baran lahaa oo wadankii geyn lahaa faa'iido weyn baa lagu qabi lahaa oo dadku way ka faa'iideysan lahaayeen noloshoodana waxba iskaga bedeli lahaa. bal ilaahay baa idinku dhaariyay khasaaraha intaa la arka muxuu dhoofiyey qofkii wuxuu dhoofiyey oo wadankii geeyey wada la toosiyey ama wada la magacaabay ama wada kale la goysiyey ama cabir. bal cabirkaas muxuu soo kordhiyey qof noloshiisa wuxuu ku soo kordhiyey male, qofkaa jeesnaa wuxuu ku soo kordhiyey male, qof ay haysay cadceed ama qoraxi ay haysay wax maaragtay hoos ma geyn, qof dhaawacmay ma daweyn, qof caafimaad darro haysay iyo nafaqa darro waxba uma siinin. ilaah baa idinku dhaariyay ma wax la dhoofiyaa. marka waxay ka halowday markii hore wuxuu barinayay ama waqtiga ku bixiyey bay ka halowday. markii hore hadduu uusan taxi kori lahayn ama taraag kori lahayn ama uusan sharal kori lahayn ama uusan ka shaqayn lahayn parking ama uusan ka shaqayn lahayn rent-a-car oo markii hore uu wax fiican markii hore uu geliyey waa laga faa'iidi lahaa dadkaas. dad badan baa soo dhoofeen oo meeshooda ku khayraysan lahaa ama wadamo kale oo shisheeye oo kale fogfog adduunka dacaladiisa ah bay ka baaqan lahaayeen. waxay ka baaqan lahaayeen badaha ay ku dhimanahayaan, waxay ku baaqan lahaayeen saxaraha ay ku dhimanahayaan. marka haddaan Soomaali nahay waxaan u baahan lahay inaan wax isu sheegno oo aan isbaraarujinno oo aan khaladaadka iskala dagaalanno oo tala fiican aysa siino oo aan isjihayno shakhsi haddaan u roonaano oo u fiicnaano oo u toosno oo u wanaagsanaano oo qof kaste wax muhiima uu bulshada ku soo kordhiyo waa toosaynaa, waan guulaysanaynaa, waan raysanaynaa. wixii taxi koray ama koray bahallada kale baabuurta la wadahayo ama kuwaan maxaa la dhahaa la dhaho raar sharinka kuwii koray oo hadda waqtigoodii dhammaaday kuwaas waa gooni. dadkas cusub dhalinyarada cusub oo hadda soo kacaysa kuwa singallada ah oo aan weli guursan oo reerka iyo carruurta aysan ku taxalluqin oo aan carruurta biilayn taksiga ka biilanayn waxaan ku baraarujinayaa in ay shaqooyinkaa kale oo bini aadamku ka shaqeeyo inay ka shaqeeyaan oo dadka laga faa'iidahayo oo wax soo saarka u leh. oo laga macaashayo yaan ku baraarujinayaa. qaran baan nahay aan istoosinno qof kasta qaybtiisa ha qabto. marka shakhsi markaan u toosno yaa qaranku wada toosahayaa. dadku iyo qaranku waa shakhsiyaad bay ka kooban yihiin. shakhsi isu tegay weeye qaran wax noqda. qaran ma toosin kartid adoon shakhsigii adoon toosin ma toosin kartid. marka ha la iska daayo tagaasidaas iyo waxaas ha la iska daayo. qof maxaa la dhahaa nolosha ka dhacay weeye waxaas wada tagaasidaas iyo waxyaalahaas qofka wada waa dad nolosha ka dhacay
waa dad mustaqbalkooda uusan sii fiicnayn waxay ka qaadayaan waa dadka maaragtay dadka caajislowye laashe weeye waa dadka leesiyiinta weeye waa dad aan meelna u socon waxaan hala iskala dagaalamo korontada barta waxaad barataan maxaa la dhahaa sida guryaha loo hagaajiyo barta anigu intaas idiin sheegayaa laakiin waad baari kartaan waxyaalo badan kombiyuutarada barta qaabka kombiyuutarada loo hagaajiyo barta oo loo program gareeyo sida waxaad barataan maxaa la dhahaa applicationada sida loo qoro barta waxyaalo badan baa baran kartaan caafimaadka barta dhakhaatiir noqda waxaad noqotaan maxaa la dhahaa waa badan yihiin waxyaalo badan oo kala duwan oo la noqon karaa jira sida ha laysu dhaamo maxaa la dhahaa waddamada ka soo tagnay dad baa na sugahaya dad baa maalin kasta abaar ku le-aanahaya dadkaas sidii biyo loogu soo saari lahaa hala galo sidii loo bari lahaa inay beer fashaan hala baro guryo siday u dhisan lahaayeen hala baro dhagaxyo ah oo aan geeda ahayn iyo caruush dadka waddankii jooga waxyaalo badan ma akhrin karaan fursado badan oo waxyaalo ay ku ogaadaan male dadka jooga dibadaha Maraykanka Ingiriiska meelahan reer galbeedka dadkaas baa la rabaa inay maskax u noqdaan oo ay maaragtay waxa ka maqan inay ku kordhiyaan oo ayagu u fakaraan oo ay u noqdaan madaxii inay madaxii u noqdaan u fakari lahaa iyo caqligii hagi lahaa in dadka dibadda jira inay u noqdaan weeye oo waddankii ku celiyaan waxyaalo loo baahan yahay oo naftu u baahan tahay dadka dibadda jira mas-uulka ah dadka waddankii jooga indhana uma kala furmin waxna ma arag waayo aragnimo male meelo ma marin annaga waxyaalo badan oo aan maskaxdayda ku soo dhacdeen meelahan aanu ku aragnay wixii meelahan lagu arkay waa in loo geeyo oo maskaxda aysan ku soo dhici lahayn bini'aadanka dadkaanba gaalada waxaa ku qaadatay 1,000 sano bay ku qaadatay inay waxyaalaha hadda ay samaynayaan ay ogaadaan lacago badan iyo waqti badan baa uga baxay iyo tijaabo badan iyo dadaal badan baa uga baxay annagu intiiba waa nalagu horreeyey waxaan samayn karnaa waa koobiyeyn karnaa oo waa ku dayan karnaa oo waan ka macaashi karnaa faa'iidada ilaah baa idinku dhaariyey sidaan waxaa laga bedelo sidaasi ma aha dadka annaga endha u ah annaga caqli u ah annaga hagi karna annaga wax tusi karna annaga wax ku soo kordhin karna dadka dibadda jooga fursadda ha khasaarinina bilaash baa laydinku bari karaa oo dowladahan bilaash ba wax idinku barahayaan lacaga xataa laydinka qaadi maayo dowladaha bixinaysa fursadaha haysano waddankii marka la jooga marka la dhaho dowlad hebel baa intaa bixinaysa waa la isku dagaali jiray boosaska wax weyn oo waxay ahaan jirtay dowlad loo qabtay ama dad loo qabtay waxay dowladuhu noo qabanayeen annagaa qabsan karna dowladuhu waxay ay maaragtay ay nagu sasabanayeen annaga hadda fursaddii u haysano annagaa qaban karna ilaah baa idinku dhaariyee sidan waxaa laga bedelo oo adduunka waa naga hormaree adduunka aan isku dayno inaan fahanno oo aan baranno waxyaalaha ayaga u sahlay nolosha inaan baranno oo annaguna aan markaas nolosha iyada wax ka bedelno tv-ga waa ila dheeraaday intaasaan ku soo gaabinayaa